السلام عليكم. Soomaaliya bariga Afrika maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc ku saabsan dalka Soomaaliya. Markaan leeyahay Soomaaliya waxaan ula jeednaa dhulka taariikhiga Soomaaliyeed. Dhulka Soomaaliyeed ee kumanaanka sano horta ahaa 100 sano 200 sano waxba kama ahan taariikhaha ummadaha sidaas darteed kala qaybinta ku dhacday dhulka Soomaaliyeed 150 sano u dambeysay wax qiimo kuma lahan xuduudka taariikhiga dalka waana arrin ku qoran kaliya bogagga taariikhda cusub ee wadamada gumeysiga badaha dhabarkooda ka imaaday u gooyay dhulka Soomaaliyeed ee maqan ubadkoodana ugu sheekeeyeen in dhulkaas ayagu leeyihiin kuna qortaan kutubta juqraafiga sidaas darteed kala qaybinta dhulka Soomaaliyeed iyo maabka cusub ee loo dejiyay inta aan ku guda jirno mowduuceena wax qiimo ma siinayno waxaan ku tuureynaa bogagga madow ee la hilmaamay. Soomaaliya waa jasiirad oo ku yaala bariga Afrika. Markaan leenahay jasiirad waxaan ula jeednaa in biyaha 3 jiha ka xigaan waqooyiga koonfurta iyo bariga taasoo ka dhigtay wadanka Afrika ugu xeebta dheer arrinkaasoo ka dhigan ahmiyad istiraatiijiyadeed iyo mid dhaqaale aad muhiim u ah. Waxaa laga yaabaa inaad maqashay gacan biyoodka cadan ee dhaca waqooyiga laakiin sidoo kale waxaa loo yaqaanaa marin biyoodka Berbera ama gacan biyoodka Berbera maadaama Berbera ay tahay magaalooyinka ugu taariikhda dheer bariga Afrika iyo dhicitaankeeda daanta Afrika ee gacanka arrinkaas ayaa keenay in lagu magac daro gacan biyoodka Berbera. Khariidadan ama maabkan waxaa dejiyay caalamka muslimka ee Idriisi taariikhdu waxay ahayd 1154 miilaadi inkastoo khariidadu gadisan tahay oo dhulka qaybtiisa waqooyi hoos jiro koonfurna korayso waa sidii la aaminsanaa xilligaas. haddii aad maabka si fiican u fiiriso waxaad arki kartaa magaalada Berbera taasoo ku tusinayso cumri dheerida magaalada Berbera. taariikhda fog ee Soomaaliya marka koobaad markii laga hadlayay inta badan taariikhda bini'aadamka iyo joogitaankiisa dhulka waxaa la isku raacay in mantiqada bariga Afrika leedahay taariikh aad u dheer markii la fiiriyo joogitaanka bini'aadamka ee dhulka. xitaa dad ayaa qabo in bini'aadamku ka bilowday bariga Afrika kadibna ku sii faafay caalamka kale. intaas markaan ka soo gudubno maadaama Soomaaliya ay ku taala deegaankaas waxaa caadi ah in waqti aad dheer lagu noolaa. sawirrada iyo farshaxanada laga helay deegaanka Laasgeel waxay muujinayaan in kumanaan sano ka hor dhalashada Nabi Ciise calayhi salaam lagu noolaan jiray halkan. laakiin arrinka culimada taariikhda iyo raadraaca nuquushta derbiyada ka yeebay ayaa in gebi ahaanba la fahmi waayay micnaha ay tarjumayaan nuquushtan ku qoran derbiyada Laasgeel. Soomaalidu taariikhdoodu ma ahayn dad cawaan oo iska yaacaya ee waxay ahayn dad xadaarad leh waxaana daliil u ah raadadka ay ka tageen Soomaalidii hore sida guryaha u samaysan qaabka ahraamta derbiyada iyo qalcooyinka taariikhiga. xiriir ganacsi oo dheer ayaa kala dhaxay Soomaalidii hore xadaaradihii Giriiga iyo Masartii hore. xilliyadii aadka u horeeyay Soomaaliya waxay ahayd xarun muhiim u ah ganacsiga xadaaradaha kala duwan. Soomaalidu waxay caalamku u iibgeyn jireen wax soo saar lagu tilmaami jiray xilligaas mid heer sare ah luubaanta iyo waxyaabo kale oo dhirta laga sameeyo. xiriir ganacsi oo muhiim ah ayaa kala dhaxeeyay Baabiliyiintii dhulka labada webi ee Ciraaq iyo Fiiniqiyiintii dhulka Shaam. taariikhyahanadu waxay leeyihiin Soomaalida xiriir gaar ayaa kala dhaxeeyay faraacintii Masar gaar ahaan xilligii fircoonkii Saaxuura oo ka mid ah qoyskii shanaad ee xukumay Masartii hore. xiriirkaas wuxuu socday ilaa qoyskii 18 ee xukumayay Masar gaar ahaan xilligii boqoradii Hatshepsut. sidoo kale xiriir ayaa kala dhaxeeyay Soomaalida Giriiga iyo xadaaradii Roomaanka. Soomaalida iyo Islaamku dhulka Soomaalida wuxuu gaaray hijradii rasuulka ee ugu horeysay. waxaa la sheegaa in rasuulka iyo saxaabada ay markii ugu horeysay ka soo degeen takada magaalada Zaylac oo markaas ahayd qaybaha bari ee boqortooyadii Aksum. masjidka labada qible ee ku yaala Zaylac ayaa daliil cad u ah in Islaamku Soomaaliya soo gaaray waqtigii ugu horeeyay xitaa ka hor inta uu gaarin qaybo badan oo ka mid ah jasiiradda Carabta. tilmaanta dhulka Soomaalida sida ku qoran kitaabka Mucjamil Buldaan uu qoray Yaquut al-Hamawi oo noolayntii u dhaxaysay 1178 ilaa 1225 miilaadi. Yaquut al-Hamawi wuxuu kitaabkiisa marka hore uga hadlay xeebaha Soomaaliya oo ku sheegay inay tahay meel cambarka lagala soo baxo aanan laga helin meel aan xeebahooda ahayn. wuxuu tilmaamay in xeebaha Soomaaliya ay ku yeelaan magaalooyin uguna caansan tahay Muqdisho. Yaquut al-Hamawi xaalka Soomaalida xilligaas wuxuu ku tilmaamay sida tan: waa dad muslimiin ah laakiin kooxa oo aan lahayn suldaan mideeyo koox kastana ay leedahay hogaamiye u gaar ah sida sheekh qabiilo. mar uu tilmaamay dhulka Soomaalida wuxuu yiri bilaaduhum bayna al-Habashati waz-Zanj. dhulkooda wuxuu u dhaxeeyaa Habasha oo Itoobiya loola jeedo iyo Zanj wixii Kenya ka bilowda. wuxuu cadeynayaa sidoo kale in Soomaaliya ka mid ahayn boqortooyadii Habasha ee ahayd dhul madax bannaan. dhulka Soomaalida Yaquut al-Hamawi wuxuu ku tilmaamay mid cagaar ah oo aad barwaaqo ah xilligaas. الإمام أحمد قري oo ah furta iyo hogaamiye taariikhi Soomaaliya
oo hogaamiyey ugu horreeyay taariikhda Afrika ee adeegsada madaafiicda goobta dagaaladii uu kula jiray boqortooyadii Xabasha intii u dhaxaysay 1529 ilaa 1543. Axmed Gurey wuxuu dhisay ciidan nidaami u badan Soomaali, wuxuuna ciidan heybad leh oo laga boqo. Imaamku wuxuu qarka u saarnay inuu gebi ahaanba dhulka Itoobiya gacanta ku dhigo, laakiin markii haraadigii boqortooyadaas ay dareentay khatarta zuulitaanka ayay qeyladaan u dirsatay xulafadii Yurub si looga badbaadiyo gulufka Axmed Gurey oo u ekaa sidii mawjado tsunami ah. Ciddii ugu horreysay ee boqortooyada Xabasha u soo gurmata waxay ahayd dowladdii Boortaqiiska, waana markii ugu horreysay ee gumaysiga Yurub cagta soo dhigo xeebaha Soomaaliya. Boortaqiisku wuxuu burburiyey magaalooyinka Berbera, Zaylac oo caasimad u ahayd saldanadii Imaam Axmed Gurey. Axmed Gurey gulufkii reer Yurub gaashanka ayuu u dhigay, wuxuuna la galay dagaalo qaraar oo taariikhda galay, waxaana ugu caansan dagaalkii Wafla ee 29 Agoosto 1542 oo ka dhacay dhulka maanta loo yaqaano gobolka Tigreega. arrinkaasoo daliil u ah dhulka imaaradda Axmed Gurey iyo ballaceeda. dagaalkaas waxaa ku baxay saraakiil iyo ciidan badan oo Boortaqiisa, waxaana ugu caansan hogaamiyihii ugu sarreeyay ciidankii Boortaqiiska Christopher da Gama, waana walaalka Vasco da Gama oo ah badmareen Boortaqiis caan ah. ragga Axmed Gurey waxay ka tallaabsadeen meydka taliyihii ugu sarreeyay ee Boortaqiiska. Al-Imaam Axmed Gurey 21 February 1543 ayuu ku dhintay dagaaladii difaaca kula jiray xulafadii Yurub iyo Xabashida. kadibna ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta bariga Afrika waxay beelaha u noqdeen damicii iyo hanqaltaagii gumaystayaasha Yurub, waxayna waayeen geesi hortaagnaa ummado badan oo ahdaaf xun ka leh dhulka muslimiinta bariga Afrika. haddaba siduu u ahaa xaalka Soomaalida wax yar ka hor inta uusan imaanin gumaysiga Yurub? marka koobaad ma jirto ummad awood la midaysan oo la gumaysan karo. xilligaas waa bilowgii qarniga 19aad xaalka Soomaalida wuxuu u ekaa sidii ay ahaayeen imaaradihii Andalus ee qabiil kasta imaarad samaystay, kadibna sidii maalinba mid loo cunayay. Andalus oo dhan ka baxday gacantii muslimiinta. xeebaha dheer ee Soomaaliya waxaa ka jira saldanado yaryar oo fara badan aanan midaysnayn, mid kastana diyaar u ahayd inay dhulka ka kirayso ama xitaa ka iibiso shisheeyaha, iyadoo arrinkaas dhaafsanayso lacag aanan badnayn. Obokh iyo Tajara waxaa laga kireeyay Faransiiska. xeebaha waqooyi waxaa sidoo kale laga kireeyay Ingiriiska, gaar ahaan Berbera, ama heshiis lala galay odayaasha dhaqanka. kama marna dabcan in la dhakray odayaasha. dhinaca marka iyo koonfurta kale ilaa bariga waxaa kireystay gumaysiga Talyaaniga. kadib arrinkaas salaadiintii laga kireystay dhulkaas waxaa lagu yidhi shanqarta kabihiinana maqashiiya, dhulkina gumaysi ayaa la wareegay. Soomaaliya waa dalka keliya ee xubinta ka jaamacadda Carabta ee umara dhulbaraha. dhulbaruhu waa khad ama layn aanan la arkaynin oo dhulka u kala qaybiyo waqooyi iyo koonfur, taasoo ka dhigan in Soomaaliya wixii dhulbaraha ka hooseeya ay ku xisaabsan tahay juqraafiga caalamka, koonfurta dhulka wixii ka koreeyana waqooyiga dhulka. haddaba wadamada dhaca dhulbaraha Soomaaliya, Kenya, labada Kongo, Gabon iyo Uganda, intaas waa Afrika. intaas waa qaaradda Afrika. dhanka koonfurta Amerika, Ecuador iyo Brazil, Aasiyana Indonesia, taasoo ka dhigan in wadamadaas ay saaran yihiin layn toosa, cimilo ahaanna isku mid yihiin. waa inta ka hooseysa dhulbaraha. deegaanada dhaca ama ka hooseeya dhulbaraha waxay caan ku yihiin roobabka. waxaan wada ognahay in koonfurta fog ee Soomaaliya tahay mid aad u roob badan, cagaarna inta badan. dhanka badka guud ee dhulka Soomaalida, dhulka taariikhiga ee Soomaaliya waa 1,115,283 kilomitir square, taasoo ka dhigan wadanka 27 ee caalamka oo dhan dhinaca badka, ahna kan tobanaad qaaradda Afrika. lama yaqaan markii ugu horreysay la adeegsada magaca Soomaaliya dal ahaan. intii aan mawduucan diyaarinay ayaan la kulmay maap ama khariidad qadiim oo la sawiray xilligii dowladda Cuthmaaniyiinta, gaar ahaan taariikhdii 1803. haddaba magac ahaan waxaa Soomaaliya ku qoran magaca Cijin sida idiin muuqato, cayn, jiin, nuun. haddaba Cijin maxaa loola jeedaa? kelmadda Cijin markaan ku eegno qaamuusyada kala duwan ee luqadda Carabiga waxaa soo baxaya dabcan magacyo badan oo kala duwan, laakiin micnaha ugu macquulsan oo ku habboon sida maapka ka muuqato waa Cijin, geel ama hal. naaqa cajina muqtanisa min as-simn, geel barwaaqaysan oo buurbuuran. waxaa macquul ah in magaca Cijin ee maapka Soomaaliya lagu qoray loola jeedo dad xoolo dhaqata, geelna caan ku ah kuna jira barwaaqo. qaybta labaad insha Allah waxaad ku maqli doontaan taariikhda gumaysiga iyo macluumaad kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya.